wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo waraysi gaar ah magaalada Hargeysa ku siiyay telefishinkan caalamiga ee Bulsha TV ayaa markii ugu horeysay ka hadlay mashaariicda horumarineed ee Soomaaliland iyo Imaaraadka ee muddooyinkii ugu dambeeyay lagu muransanaa. Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore madaxtooyada oo ugu horeyn Bulsha TV weydiisay bal cidda saxiixday heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland ay wada galeen ayaa waxa uu ku jawaabay. run ahaantii su'aashaas waxaan u arkayaa in jawaabteedu ay sida dharaarta u caddahay waaqacayna hor yaalaana ka turjumayo. heshiisyadaa waxaa saxeexay xukuumaddii Somaliland xisbiga kulmiye ee uu galwadeenka ka ahaa madaxweyne Axmed Silaanyo. hadday tahay heshiiska DP World oo aanu wadnay muddo 9 bilood in ku dhow isla markaana kaashanay khubaro waaweyn oo garyaqaano caalami ah ku takhasusay nidaamka dekedaha iyo dhiilalka ama heshiisyada laga galo. sidoo kale heshiiska saldhigga militarina isla xukuumadda ayaa saxeexday. ma jiro wax heshiis iyada dawladda Soomaaliya ay raad ku leedahay. waxaanu shacbiga Somaliland u cadaynaynaa inay iska tahay hadalada dacaayada oo raqiis ah erayadaasi. waxaa ka markhaati kacaya الفضل بما شهد الأعداء ما عربيت با waxay tahay ragga ay saysaan waxay ku qiraan ba galad ku ah waa kuwa madaxdii dawladda Soomaaliyeed dhamaantood qiraya inay heshiisyadaas waxba ka saxiixin. shalay u dambeysay wasiirka khaarijiga ee dawladda Soomaaliya ayaa hadlay oo sheegay dawladda Xasan Sheekhna inaanay saxiixin heshiisyada dawladda farmaajina saxiixin. sidoo kale waxa uu Maxamuud Xaashi ka jawaabay wararka sheegaya in xukuumadaha ay kala dambeeyeen madaxweyne Silaanyo iyo Musabbix ee Soomaaliland soo mara ay iibiyeen dalka isla markaasina ay sifo sharciga ka baxsan u mareen heshiisyada iyo mashaariicda horumarineed ee Soomaaliland iyo Imaaraadku wada galeen. way sahlan tahay calimaadiyow in la isceebeeyo ama la iscaayo. waxa bini'aadanka ugu sahlan wuxuu afka ka yiraahdo. laakiin waxa u baahan yahay doodaasi marka ay rag waaweyn oo siyaasiyiin yihiin badka keenayaan inay kul soo laadaan cadayma luxdan. waxa kale oo u baahan tahay in shacbiga Somaliland garsoorka noo ah marka uu kala furto. doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland ee dalka ka dhacday 5 bilood ka hor waxay ahayd garsoor shacbiga Somaliland ka garsoorayo wadani iyo kulmiyo garsoorayo. aragtiyaha iyagii siyaasadeed ee dalka aanu ku wadnay horumarkii aanu hilaadinaynay hal abuurkayagii siyaasadii dibadda gudaha intaba waayo kala aragti baanu ahay. marka shacbigu kulmiye waxa uu 5% musharaxiintoodii ku doortay waxay ka markhaati kacaysaa inaanu ahayn xisbigii siyaasadda wanaagsanaa. haddaanu tuugnahay dalkaybiyey dee shacbigu nama doorteen taageerada kulmiye ma heleen. waxa kale oo aan ku lamaanaynaya waa taa maanta soo muuqata hirkeedii hal abuurkii aanu wadnay ee aanu hilaadinaynay ee horumarkii qarankan aanu doonaynay inuu higsado. maalin dhowna marka gaawaha loo culo goor walba muxuu ahaayey la liso wuxuu noqon doonaa iyaduna mid aamusisa yeedhaha yaryar ee meelaha ka baxaya. maruu ka hadlayay wasiirkii hore madaxtooyada Soomaaliland kala duwanaanshaha siyaasadda arrimaha dibadda ee asxaabta siyaasadda gaar ahaan afkaarta mar walba xisbiyada kulmiye iyo cid ay isku midka ka noqdaan iyo ka soo horjeesiga ay ku kala aragti duwanaadaan xisbiga wadanina waxa uu yiri bini'aadamku difaru ma sinna anagu talagelinta iyo la tashiga muunaynta iyo inaanu talada wax kaga maamusnaanu lahayn laakiin inaanu ku disno iyo inaynu wala shaqeeyaan taa anagu maanu lahayn. gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe arrimihii mashaariicdii maalgashiga iyo horumarinta qarankan aanu u hilaadinay wuu nagu garab galay waa ku bogaadinaynaa. laakiin Cabdiraxmaan markuu yahay gudoomiyaha xisbiga ee wadani aragtiyaha nagalama shaqayn. muxuu ahaayey nagalama shaqayn waxyaalo badan oo horumarka hagardaamo ku ana
oo aanu xusi doonana iyagana waaba ku kacay bale wuxuu la jaan iyo jiib noqday raggii aanu isku haynay horumarka Somaliland ee qarankan hagadaamaynay horumarkiisa ay ka mid tahay dawladda Soomaaliya iyo wadamo kale oo muhiim aan ahayn hadda inaan xuso ninku waa inuu gartaa cadowgiisa iyo naslixiisa dhinaca kalena waxa uu maxamuud xaashi ka jawaabay eedaymihii dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ee ku saabsanaa inuu khaayin ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland isla markaasina uu soo jeediyay Muuse Biixi Cabdi inuu xilka ka dago ama maamuska xayuubin lagu sameeyo waxa uu kuga jawaabay arintaasi Cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha Cabdiraxmaan arrimaha qaar waa kooga arrimaha waa igu cusub yihiin arrimaha qaar waan ku ogaayo arintani arrin qarsoodiye ma ahna arrin weyn bay ahayd oo xataa buddig u ahayd miqyaaskii doorashada iyaguna waxa ahayn meelaha irtikaasayeen annaguna waxaanu ahayn xisbiga iyagu meelaha irtikaasayeen shacbigii Soomaaliland baa noo kala markhaati furay Cabdiraxmaan waa ku kala duwanayn aragtiyaha Soomaaliland inay u baahan tahay maalgashi iyo horumar waanu ku kala aragti duwanayn annagoo dariiq sharci ah oo sax u marayni ninu laab xumeyn wax qarsanayaa baa la moodaa lamaanu faqin kalkalana kumaanu gashan fakaaraanu keenay golayaashii sharci dejinta ummadda dooratay baanu ka ansixinay muxuu ahaayay shacbigana tafsiiro badan baanu ka siin taa waa ku kala aragti duwanay laakiin waxa igu cusub muxuu ahaayay hada arrimaha qaarkood oo ka muuqday hadalka uu maalinta dhaweyd jeediyay waa igu cusub yihiin waxaanan isiri Cabdiraxmaankii hore ee odayga ahaa waxa kulliba malaa ka dambeysay doorashadii cusleed ee uu galay ee madaxtooyada oo waliba de si weyn loo kala adkaaday 80,000 oo cod baa xisbiga wadani lagaga adkaaday Cabdiraxmaan musharaxi waa ilaa iyo hadda intii doorashada laga baxay Cabdiraxmaan waxa ka muuqanaya taaladhac waxaan isleeyahay malawa Cabdiraxmaan gudoomiye Cabdiraxmaan doorashadii buu ku dayoobay natiijadeedii ulusaasaan isleeyahay Siinayo waa la ligday 80 cod buu ku sabray bini aadanka in badan baan rumaysan karin Cabdiraxmaan 80,000 buu maanta la dayoobay oo la dawaqay waxa idin uu garwaaqsado ma amaahina waa laga adkaaday hays casilo madaxweynihii ka adkaaday 4 bilood gudahood oo xil kaba hayo oo buulcawsa hays casilo doorasho kale hal la qabto maamuska xayuubina lagu sameeyo ereyadaasi waxay muujinayaan hadallada aan leeyahay anigu u miidaan deeya ayay muujinaysaa marka waxaan runtii maanta uma baahna Axmed Siinaye iyo Muuse Biixi inaan halkan kaga difaaco inay yihiin khaayinul qaran inay qaranka khiyaameeyeen iyo in kale taariikhdii ku leeyihiin iyo halkankay u soo mareen iyo horumarkay u horseedeen maanta halkan uma baahna bale ma mudna in la xagxagto oo la xajiimeeyo ma mudna hase yeeshee qof waliba garaadkiisbu kiskiisu kor tagaa mar walba xisbiga wadani iyo Dr. Cabdiraxmaan Ciraba waad ku kala aragti duwanaanayseen siyaasadda arrimaha dibadda iyo danaha Soomaaliland halkaad gudoomiyaha xisbiga Uciid Faysal Cali Waraabe iyo xisbigiisa Uciidna aad isku aragti ka noqonaysan maxaa sababay in labadiina xisbina isku aragti noqotaan mar walbana Cabdiraxmaan iyo xisbiga wadani inaad kala aragti ku noqotaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaan isleeyahay markaan si xigmad leh ku ururiyo injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Uciid waxaan u arkayaa inuu bisayl badan oo siyaasadeed runtii lahaa la jecel badanna qaranka ka qabay oo uu kala fahamsanaa inaanu siyaasadda gudaha isku hayno laakiin ta gudaha dibadda saan qaranka in loo sahan tago loo ceelaliyo tago in horumar loo horseedo aqoonsi Soomaaliland la doono saaxiibo loo doono inuu ka bislaha ayaan aaminsanahay gudoomiyaha xisbiga wadani nasiib darro weyn baanu arkay in uu nagaga aragti duwanaado horumarka ballaaran aanu qaranka u hilaadeen ee aanu sifada sharciga u maray ee aanaanu la jeesin
waxaanu arkayay mid salka ku haya dana gaar ah waxaanu arkayay inuu ku dhaqmay siyaasad salka ku haysay saboolnimo iyo shisheeye kalkaalnimo waqtiyadii aanu hawshaa ku jiray waxaan tusaale u soo qaadanaya cabdiraxmaan isaga hadda wuxuu ku eedeynayay madaxweyne Siilaanyo iyo madaxweyne Muuse Biixi inay yihiin qaranka khiyaaneeyeen hadday khiyaano jirto oo qarankan la khiyaaneeyay cabdiraxmaan baa khiyaaneeyay cabdiraxmaan baa ka raacay ummadan dadkii hagardaameynayay horumarkooda maalintii aanu labada gole horgeynay mashruucii saldhigga military galabnimo subaxii baanu la ansixiyey labada gole cabdiraxmaan iyo tobanuu ku jiro ayaa ka baxay cabdiraxmaan waa ninkii labada aqal muu ahayn ninkii bixi lahaa doodiisaa u furayd fartiisaa u furayd dimuqraadiyaddaa sidaasa goleyaasha cod bay ku kala baxaan cabdiraxmaan sunnihii dimuqraadiyadu madaxda ku ahaa buu jebiyey goli buu ka baxay inama yarar baa ka jiitay xataa isagu muu garan ka baxe inamaa ka jiitoy soo baxa warbaahintoo dhan baa arkaysa wuu baxay galabnimadii diyaarad buu raacay wuxuu duulay dalka Itoobiya maalin kadibna dadkana wuxuu ku yidhi waxaan qabanayaa Finland iyo reerkaygii baan 3 cisho ku maqnaanaya wuxuu cabdiraxmaan tegey waddanka Turkiga magaalada Istanbul wuxuu halkaa kula kulmay madax ka mid ah dawladda Soomaaliya iyo dad kale oo ka taageera hagardamada horumarka Soomaaliland xukuumadahan waanu ogey dawladda quraanshay leedahay wala socon waxa soo dhan ilaa levelka shindadiisa lagu dhajiyay baan la soconay markuu lahaa Finland baan ku socdaa waxaan si cunfiilo lamaanu dhaqmin bisaylka iyo dad isku wadka ayay naga ahayd duqoonimana nagama ahayn Nairobi wuxuu kula kulmay sidaas oo kale xilliyadii ololaha doorashada ragga maanta qaarkood madax ka yihiin Soomaaliya maalintii la weyto madaxweyne Muuse Biixi wuxuu u soo bandhigay inuu u raaco safarkii labada hogaamiye mucaarad si ay xeedhada gunteeda ogaadaan waa tala wadaagga ka sheekeynay markii dhawey Axmed Siilaanyana uu sameeyay ayuu madaxweyne Muuse la sameeyay waa ku bogaadinaya madaxweynaha talaba fiican bay ahayd cabdiraxmaan waa ka cudurdaartay wuxuu yidhi hawlaan leh Faysal waa raac haddaanu wax qarinay muu raaco gunta soo gaadho oo goobta tago markii uu madaxweyne Muuse soo noqdo Libi iyo guula soo noqdayna Soomaaliya oo dacaydeynayso maagaysa horumarkeena dagaalka maanta ka dhacay labada dawladoodba uu ka yahay ayuu la aragti noqdo la afkaar noqdo la hadal noqdo shacabka haddaan xeeladii ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabay Soomaalidu tiraahdaa maalmo yar kadibna waa dhoofay cabdiraxmaan haddana sidii caadada u ahayd waqtiga hore wuxuu tegay waddanka Itoobiya oo ku raadgadanay waddan kale u baxay halkaana cid uu kula kulmay iyo wuxuu miiqayna waa loogi waxaanu ku kala aragti duwanahay guud ahaanba annaguna dalkan waxaanu u doonaynaa horumar isagoo xora oo aan cidna loo marin cabdiraxmaanna kuwii horumarkeena nashuusheedeynayay ee ka jidhiidhocoonayay ayuu dee la xaglinayo la dawliska la jiiday waxay ka tahayba naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir waxay ka tahayba kuwaasuu la dawlay markaa dee way muuqataa inaanu ku kala aragti duwannahay siyaasaddii dibadda oo ay iskaga qaldan tahay waxa ummaddani wadaagto cabdiraxmaan iyo waxa aanu isku hayno si kastaba ha ahaatee waxaa isi soo taraya eedeymaha xukuumadda iyo xisbiga taabacsan iyo weliba mucaaradku ay isku jeedinayaan ee ku saabsan imaaraadka iyo heshiisyada ay Soomaaliland wada galeen waa Cali Mahdi Jibriil telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.